waan iyo wadahadal ay maalmihii u dambeeyay wadeen siyaasiyiin waxgarad ganacsato iyo mas'uuliyiin xilal hore ka soo qabtay gobolka Togdheer ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan khilaaf adag oo maalmihii u dambeeyay u dhaxeeyay duqa degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Heero iyo maayirkii hore ee degmada Burco Maxamed Muraada kuwaas oo warbaahinta isu mariyay hadallo dhagxumo leh oo aanay jeclaysan dhawaaqooda dhagaha dadweynaha ku nool gobolka Togdheer barasa ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Xoday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay islaab xadheen labada mas'uul isla markaana ay halkaas ku dhameeyeen khilaafkii u dhaxeeyay maayirkii hore ee degmada Burco iyo maayirka haatan ka taliya gobolka Togdheer Cabdirasaaq Ibraahim Heero halkan munaasabadan waxaan maanta ku wada fadhinaa odayadii iyo labeentii reer Burco waxa weeyriya maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka hore Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad intii waxaan isugu nimay munaasabadan inaanu ku soo gabagabayno ama ku dhamayno hadallo runtii gudoomiyihii golaha deegaanka hore Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan runtii uu ka gaadhay gudoomiyaha deegaanka ee degmada Burco Cabdirasaaq alxamdulillaah rabbil caalamiin gudoomiyuhu raali gelin buu bixiyay mid shakhsi iyo mid guud iyo mid gobol intaba ah gudoomiyahan Cabdirasaaq ee cusub ee degmaduna wuu gudoontay isagoo afkii degmadana ku hadlay afkii shakhsiyeena wuu gudoontay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa labada oday haddaan ku horeeyo Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad gudoomiyihii deegaanka hore 17 sanadii ugu dambeeyay buu wuu dareemay hadalladiisii maalintii dhaweyto halkan runtii ka yimi inaan isaguna markuu dib isugu noqday reer Burco iyo reer Soomaaliya toole inaan jeclaysan isagaa gartay inuu maantana hadalkaa raali gelin ka bixiyo odayadan iyo golahana markhaati uu uga dhigo gudoomiyaha golaha deegaanka imikuna saasuu ku gudoontay annaguna saasaan uga mahad celinay waxaan filayaa wixii maanta ka dambeeya ee munaasabadda gudoomiyuhu lahaa iyo sharaftii iyo hogaamintii wacneed uu degmadan ku lahaa inuu maantana gudoomiyaha degmada cusub Cabdirasaaq kula shaqayn doono uu ballan qaaday inaan wax dambe iyo hadal dambe oo qadaf ah mid wanaaga mooyaane inaan mid dambe ka imanaynin Cabdirasaaqna waxaan kula dadaalmaynaa ragga waaweyn ee xilalka ka soo qabtay ee aanu ka maarmaynin isaguna inay garbihiisa noqdaan taladooda iyo tusaalahooda mar walba u baahan yahay inuu maxay ahaydee soo dhawaysto meeshan uu joogo waa meel hawl badan waa meel maalinta ka dambaysa haddaana tala iyo tusaale iyo isgarabtaag u haysanin aan runtii shaqadiisa kugu adkaanayso marka aad baan uga mahad celinaynaa raaligelinta iyo bolojiiska iyo xaalka ee uu bixiyey sidaasaanu maanta idiin sheegaynaa arrinkaasi wuu soo gabagaboobay cid kasta oo doonaysa inay ku qabsato dabkana waxaanu leenahay arrinkaasi wuu gabagaboobay reer Togdheerna saasaanu insha allahu tacaala aanu afkoodii ku hadlaya ugu gudoomay raaligelintii dhammaantiina waxaan leeyahay sidaa ku ogaada Cabdiraxmaan Trika telefishka Horyaal Burco